الله naxariistay abwaankii Soomaaliyeed Maxamuud Cabdullaahi Ciise abwaan Sangub ayaa saakay ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Abwaanka ayaa daryeel caafimaad u joogay dalka Itoobiya waxaana geerida abwaanka u xaqiijiyay saxaafadda qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdullaahi Ciise abwaan Sangub oo sameeyay riwaayado badan isla markaana ku soo jiray fanka Soomaaliyeed muddo dhowr ah ayaa ka soo laabtay qurbaha dhowr sano ka hor. abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise abwaan Sangub ayaa sanadii 1944 waxa uu ku dhashay deegaanka Dhagaxbuur waxaana uu fanka ku soo biiray isagoo daadiisu jirto 5 sano jir. waa abwaan Soomaaliyeed oo leh hal-abuur dhinacyo badan leh taariikh faneedka. abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu kamid ah abwaanada Soomaaliyeed waa nin dad badan ay ku xusuustaan kaalinta uu ka qaatay kicinta suugaanta Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu ku dhashay baadiyaha magaalada Dhagaxbuur dhulka ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadku markuu ahaa 1943 halkaas uu ku soo barbaaray. markii daadiisu ay jirtay 5 sano ayuu ku soo biiray culinta fanka iyo gabayada. dhalinyaranimadiisii waxa uu ku soo baxay ciyaar dhaqameedka gaar ahaan ciyaarta dhaantada. abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub Allah u naxariistay waxa uu ka soo jeedaa qoys asal ahaantiisu uu hidihiisu yahay suugaanta. aabihiis waxa uu curin jiray gabayada halka abtigiisna uu ahaa gabyaay caan ah. waqtigii hore ma jirin waxbarasho jaamacadeed iyo iskuulba dalku waa ay ku yareed sidaa darteed abwaan Sangub waxa uu ku soo dadaalay in uu barto Qur'aanka Kariimka ilaa uu dhameeyay Qur'aanka. xilligaas waxyaabihii dhalinyaranimadiisa waa isugu taxaluujin jiray waxa kamid ah gabayada. Sangub abtigii waxa uu ahaa ninkii uu timacade ku hadal qabsan jiray ee uu lahaa mudanihii Aflow iyo sidii Maxamed Mawshid. Aflow waxa uu ahaa abtigii hooyadii la dhashay. Allah u naxariistay Maxamuud Cabdullaahi Ciise abwaan Sangub sanadii 1961 waxa uu fadhiistay imtixaan uu Radio Hargeysa ka qaadayay abwaana dhowra halkaas uu ka soo baxay isla markaana ku guuleystay imtixaankaasi. abwaan Sangub waxa uu ka shaqo biloobay Radio Hargeysa oo uu noqday shaqaalaha rasmiga ka shaqeeya Radio Hargeysa. isla sanadii 1961 abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu soo wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya halkaas uu imtixaan u galay Radio Muqdisho isaga iyo 22 abwaan kale. Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa imtixaanka ka qaaday Fuqi Buraale iyo Cismaan Kaahin iyo Cali Afyare. Sangub markii uu yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa la yaab iyo dhabanhays ku noqotay sida gabdhaha Muqdisho ku nool ay u dhaqmayaan iyo sidii ay ahaayeen gabdhihii uu baadiyaha ku yaqiinay. abwaanku waxa uu noqday mid halis ku ah sameynta riwaayadaha xiisaha leh. guud ahaan riwaayadihiisu waxay u qaybsami jireen wadani, jacayl iyo kuwa falsafaad ku dhisan. riwaayadii ugu horeysay uu sameeyo waxa la oran jiray Nagaguur waxayna ahayd mid wadani ah oo ugu talagalay gumeystihii Ingiriiska oo waqtigaasi gumeysan jiray wadamo badan oo Afrika. 1964 ayuu sameeyay riwaayadii la oran jiray Lamood noqon sawayde. abwaan Sangub halkaas kama uusan harin abwaannimadiisii. riwaayadiisu waa ay xoogeysteen mu'alifnimadiisii sanadii 1966 waxa uu sameeyay riwaayad caan ah oo la oran jiray Yaxaas Dhagaduub. abwaan Sangub mar la weydiiyay cidda ku dhiirigelisay sameynta riwaayadaha waxa uu yiri mu'alifiinta qaar baa baqayla oo aanu sheegin cidda soo gacan qabatay. aniguse sidaa ma ihi oo waan sheegayaa waayo cidna kuma soo dhalan ayuu yiri. riwaayadaha waxa igu dhiirigelin jiray Cismaan Aadan Cismaan Askari oo aan isagu iga harin ilaa aan ka sameeyay riwaayadihii Lamood noqon sawayde iyo Nagaguur iyo kuwa kale oo badan. Allah u naxariistay abwaan Sangub maanta ayuu ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.